السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد باد سلامتين. أدونك وحولبا وحلو قاتا رخصة أما ليسن أما أقلاشو. قاعد هذا دونيسيد وحدو باهن تهي تيسر لغوضو. مركات قادنيسيدنا وحلقو صومرانيا اتحان iyo faxas iyo baaritaan shuruudiisa ka soo baxay in marka inta soo dhamaysidna waxaad u maraysaa tababar iyo macalinku bara sida gaariga loo wado haddii aad dhakhtarnimo doonaysid waxaad u baahan tahay inaad baratid dhakhtarnimada oo aad shahaadad u qaadatid iyo ogolaasho iyo laysan aad ku magaranaysaa aad ku shaqaysid dhakhtarnimada ee dadka aad lagu aamino waxa soo dhan waxa loo sameeyaa oo shuruucda iyo shuruuda imtixaanka loo mariyaa qofka si uu uga badbaado eed ama dhibaato ama adiyad ama isaga soo saamaysa ama dadka kale gaadha oo ka timaada arinta jahli uu ka qabo ama aqoon aan u lahayn inay ku timaado dhibaatadaasi oo uu naftiisa iyo ruuxiisa iyo maalkiisa ay wax gaadhaan ama ay dhibaato gaadho ama uu dadka kaleba ay dhibaato ka soo gaadho naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda waxaa jirta wax la yiraahdo aabanimo aabe dad badan ayaa u haysta aabe waxaad noqotaa maalinta ay ubad ku dhasho aabanimona waxay kugu sugan tahay maalinta aad xaas yeelatid waxa u baahan tahay aabanimadu in la fahmo aabe ma aha ubad dhal xaas yeelo gabadh guurso oo caruur ka dhal ma aha ilmo yaro aabe ku yiraahda maanta haddii aad kaba soo qaad aad magaalada intaad u dhaadhacdid hoose ee aad soo iibsatid jihaas ama television ama record ama stereo ama mobile ama telephone whatever markaad guriga la timaadid waxa ugu horeeya ee aad eegaysaa waxa weeye buugga la socda ama katalojka la socda ay ku qoran tahay tacliimaadka sidee baad ula tacaamulaysaa ee ula dhaqmaysaa jihaaskan aad soo iibsatid marka ilmo yar ku dhasho haddii aanad haysan ama aanad soo akhrisan ama aanad soo baran ama aadan ku dhaqmaynin katalojka aabanimada waxaan u maleynayaa ilmaha yar iyo ubadkaasi wuxuu noqonayaa ubad aan lahayn hoggaan dad ba aaminsan ninku marka uu ubad u dhasho inuu aaba noqday maaha aabanimadu maaha inaad ubad dhashid kaliya aaba kuma noqon kartid waxaad u baahan tahay inaad noqotlaysatid aad wadi kartid inaad aabanimada laysankii aad u qaadatay ama awoodda aad u leedahay inaad aaba noqotid waa inaad reerka iyo ubadka aad wadi kartaa waayo ninka gaariga wada hadduu xaadis galo ama shil galo waa bir weeye gaari waa la samayn karaa gaari kale la soo iibsan karaa waa la ranjin karaa waa la berbereen karaa dib baa loo hagaajin karaa laakiin ninka ummad wada dad nafley ah wada aabe marka uu xaadis la galo ama shil la galo ma la samayn karo ama hagaajin karo dib looma kabi karo wixii jabay waa jabeen naf baa dhimatay lama soo noolin karo inanka maanta guursada ee ubad dhala wuxuu u baahan yahay inuu barto sidii ula tacaamuli lahaa sidii ula dhaqmi lahaa sidii u geli lahaa wuxuu bari lahaa wuxuu u sheegi lahaa wuxuu ka ilaalin lahaa wuxuu kula dardaarmi lahaa wuxuu noqon lahaa waayo maanta ubadka dhalanaya mustaqbalka waa hantida ummadda qabsiga farakuhaynta waxa uu wadanku u leeyahay ee hanti u ah waa ubadka dhalanaya ee ay dadku dhalayaan ee aabuhu dhalayo aabihii haddii aanu ubadkii u diyaar garayn inuu yahay hantida dalka waxa ka imanaya waxa weeye waa wax in haysta waxa ummadda haysta waxa weeye waa wax inaynu fahamno horta oo aynu istaagno oo aynu wax isweydiino maxaasi arun meesha ku jirta weeye in la isweydiiyo what's going on maxaasi maxaa wadankan maxaa ka siya waxyaabo badan oo ka qaldan ayaa waxaa ka mid ah taa aynu maanta ka hadlayno iyo tuyo kuwa badan oo kale oo soo socda waynu ka wada hadli doonaa hadda ka hor waxaanu ka hadalay kliibkii ka horreeyay kliibkan waxtarka ummadda iyo dadka iyo danyarta iyo dadka baahan waxtarku waa maxay su'aasha kliibkii ka horreeyay kliibkan iyo ka ku xiga insha Allah waxaanu ka hadlaynaa waxyaabo la darsa what's going on waa maxay xanaga qaldan waxa la yiri wadan hadaad abaar ku aragtid oo roob dii waayo oo ay ma noqoto waxa weey waa wadan sida ay sunnuhu sheegay iyo axaadiista nabiga laga suuriyay wadankaasi waa wadan dadkii ku noolaa ay daayeen wixii la oran jiray sakada iyo sadaqada erku hadduu ka aamuso oo oomana dadka bado ilaahay waa dad sakadii hadday bixiyeen aan ahlul xaqi aan siinin
oo aan sadaqa bixin. Marka waxaan idinkula dardaarmaya anigu waxaan idinkula dardaarmaya aan fahamno aabe waa maxay, meere lagu dhawaaqaaba, ma dhaqan lagu dhaqmaaba, ma wax la bartaaba, ma wax lagu dhashaaba, ma wax la kasbadaaba, ma wax isagu iska yimaadaba, ma wax la doontaba, ma wax la iska yeelyeelaba, mise waa wax nolosha qayb ka mid ah oo sida aad maanta haddaanad aqoonin sida wax loo cuno wax loo cabo inaad dhimanaysid, oo ah isaguna haddaanad aabanimada noqon siduu aadan u aqoonin sida ay tahay iyo shuruucdeeda inuu waxa aad gacanta ku haysaa iyo wadanka iyo dalka iyo dadka iyo ummadda iyo u baaba'ayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.